الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له waxaan hadda ilaahay dhamaantii halkii isku keenay waxaan hadda labaad leh qofan bini'aadam mahadnaq ilaahay oo mahadnaq waxaan hadda labaad leh dhammaan bulshooyinka soo heshiitay shirkana kaga shirayno ay ka tashiga xisbiga wadani qaybtiisa Switzerland waxaan ku soo dhaweynayaa sidii caadada inoo ahayd oo aayaadka quraanka ay nagu furi doonaan barnaamijkeena walaalkeen Saad Muuse ku soo dhaweynaa بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق الله الكريم ولكن ميسان حسنات إلهي وطرح آيات قرآن كلنا فيه برنامج كان إنه سيكل وقال دونا بكي وقفاي وصول جيدي انت بلان حوشان قبطي وقفوا دقال دونا محمود عبد الله عينان قابية حفلة كسول محمود بسم الله الرحمن الرحيم دمالاتنا فرطة يدي سلام إياه هنيجي خجل سليم دمالاتنا يدي سلام إياه هورتا دمان وردي كم هتعلي عاوة كسوق قلقا كسوق قلقشة حفلة دونو أهدا فركي حسبي وطني لانتيسي سويسرلاند waxaa kaloo aan aada ugu mahadnaqayaa caawa waxayna la jooga guddoomiyihii qaaradda Yurub ee xisbiga wadani oo aanu shalay fiidkii kusoo dhaweynay airportka kolley inala jooga caawa dhammaanteedna inoo ah marti aynu kula soo wada dhaweynayno kolley dee afka hor hadlaynaa waa afkiinii baan jecelahay qalbiga waynu kasoo wada dhaweynaynaa number one waxaa koowaad ee naga go'aanayaan caawa isugu nimo waxa weeye qadiyadda Somaliland oo ah qadiyad dhiiggeena iyo jidhkeena iyo caafimaadkeena uu ku xidhan yahay talabaad ee xisbiyadii iyo qof walba xisbigii uu taageersanaa iyo dimuqraadiyaddii iyo wixii oo dhan insha Allah biidhnillaahi tacaala way inoo socon doontaa gaar ahaan maadaama aynu nahay reer wadani ama aynu caawa ku maamuusnay xafladan xisbigii wadani kusoo dhawaada baan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan iyo niyad furanba كل وحي تاكد بيانا وحي نوع حديدين دونا حفلة ولكن هدي الله كريمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم سيء ولكن محمود كلمة قيمة يقايا له نيري إنه وصي ولا دونا برنامج كنا سيلا كنت كلا دونا لما أنتينا مر والبمر كو يمر لبعض يمر استحادين ولا ما حنا قينا وعكسول وينا قدومية هلا حسب الوطني الآنتي سويسرلاند قدومية محمد عثمان بكر كسوله قدومية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها حسبك وطني قارة يوروب أحمد ناهي دمان دلنيرا كان سوتيمي يري وايين تومركا يو دمان كديدا كسو قيب شيء هل كان يماعة ويوفرددا تافوركا لانتا حسبك سويسرلاند waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh marka labaad caawa barnaamijkeenu waa mahadnaq iyo sida aynu dhaha uga fogeyno laanta xisbiga wadani ee wadanka Switzerland marka laba erey baan halkan ka oran doonaa oo mahadnaq isaga badan marka hore waxaa farxad weyn ah inaynu caawa ka dhabaynay himilooyinkeena in badan aynu ku taamaynay oo ahayd inaynu balmaruun bulshooyinka xisbiga wadani aynu isugu keenno hal meel taas aynu ugu qabanno bal xafiiskii furitaanka taasoo caawa inoo hirgashay waa alxamdulillahi rabbil caalamiin marlabaadka waxa aan aad ugu mahad celinayaa gudoomiye Axmed Naahi mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayo oo isagoo waqtigiisa inoogu soo huray safar dheer inoogu soo qayb galay inuu caawa goobjoog ka ahaado xafladda tan quruxda badan leh aynu isugu nimid
marsaddexaad waxaa mahad iska leh dhalinyarada odayaasha haweenka iyo dadkiinan quruxda badan leh ee soo camiray xafladda tan waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin xisbiga wadani waa xisbiga hirgelinta himilooyinka Somaliland waa xisbi inooga baahan dhammaanteen inaynu iskala taagno yar iyo weynba aynu naf iyo maalba aynu u hurno innagoo taa ku salaynayna shuruucda xisbiga iyo guud ee jamhuuriyadda Somaliland innagoo mar walbana xooga saarayna sidaynu wadankii aynu uga nimi wax ugu qaban lahayn waxaa xasuusin mudan in dadkeena halkan isugu yimid maanta xisbigan ka yeelaya innagoo codna bixinayno waayo waynu kasoo fognay hadda laakiin fikrad baynu bixinaynaa caqli saliima baynu bixinaynaa hantideena iyo caqligeenaba waxaynu soo raacinaynaa sidaynu uga midho dhalin lahayn wadankeenii oo dimuqraadiya oo lagu wada tartamayo oo saaxad nadiifa la isugu yimi misana horumar iyo barwaaqo la higsanaya dhammaantiin aad baan markale idinku mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye maxamed aad ayuu mahadsan yahay kelmadiisa qaaliga u yeedhi iminka waxaan kusoo dhaweynaynaa oo barnaamijka kasii hadli doona kayse maxamed oo ah xiriiriyaha laanta Switzerland kusoo dhawo kayse السلام عليكم dhammaan dadka meesha isugu yimi mudane iyo marwooyin dhalinyaro dumar iyo caruur aad baan marka hore idiin salaamayaa innagoo maanta isugu nimi daafurkii koobaad ee laanta Switzerland ay furto ee ugu horeeyay ee xisbiga wadani taas kasoo qaybgalkeeda وحلالة وحي كسو قيب قليا هل كان سويني يقول قليا og inoo iman doona aad baan idin xambalyeelayaa idina soo dhaweynaya taa dabadeed xusbigan waa xusbi qaran waana xusbi ka mida saddexda xusbi ee iminka waddanka ka jira waxaanad moodaa inuu yahay xusbiga maanta dadku ugu badan yahay uguna cadcad xusbiyada inta badan dadkii muwaadiniinta ahayd ee reer Somalilandna ay ku wada jiraan iyagoo u arkay ama u jeeda inuu yahay xusbiga ku xiga xusbigan ee ah xusbiga soo bixi doona iminka loona rajaynayo inuu xilka isbedel doon uu ku guuleysan karo isagoo lagu doortay hufnaan aqoon cadaalad iyo deganaanba sidaa awgeed dhalinyaro iyo marwooyin iyo odayaasha laftooda waxaan idin sheegayaa waa inaynu arrinkan Somaliland isbedelka ah ee aynu xisbi ahaan uga soo wada qayb galnay inaynu kobcino ku dayano laamaha kale ee ka furan dalalka intiisa badan sida Switzerland sida Sweden UK America Holland Denmark Europe iyo America ba ka furan dalkiina loo badan yahay sidaa awgeed waa inaynu kacno si aynu isbedel doon u samayno dalkana aynu isbedel cadaalad ku jirto aynu ugu taageero una soo baxno oo aynu qalbiga iyo afka iyo dhaqaalaha iyo aynu arrin walba si aynu la qayb gallo wasalaamu calaykum sidaasaan idiin rajaynaya waanad mahadsantihiin wasalaamu calaykum هذا الناس ولكن وهذا المسؤولية يحسب قال برشي هو ما قدر سلها إن حسب قوتنا وياهي حسب كي قبيلة يقرأ فوق كردميستري لها حكومة هذا تنظر حتى لسايق إلى شيء إنه أون مرة والله ما نحدين عن عاسي كوهي عن سحن ولد مين احترامي هنا تذكر مدحته احترامي وياه الناس ما احترامي عم بيكم تاع
waayo kan madaxda noqday waxa weeye waa mid inaga mid ahaa waa mid shacabkeena ka mid ahaa inagaa dooranay inagu inoo shaqaynaya markaa dabcan xisbigii doonaba ahaadee in xilka ay axsaab xisbiga maanta kulmiyaha hayo inagoo ku ixtiraamayna haddana dhaliishiisa ina sheegno waa biyo kama dhibcaan wax la qarinayana maaha dabcan waxaan ku hanweynaa xisbigeenna wadani inuu bedeli doono xisbigan kulmiye laakiin isbedel khayr markuu xisbiga kulmiya udub bedelay waan bedelaynaa bay lahayn laakiin kuma darsan isbedel khayr qaba mar walba inaku waxaan leenahay isbedel khayr qaba markan waxaan kusoo dhaweynayaa walaalkeen maxamed cabdi jaamac oo ah garabka dhalinyarada kusoo dhawo maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد بني السلام يا دمام. وحن halkan uga faa'iideysanaya chance-kan inaan salaamadan uga diro madaxda wadani khaasatan waxaan aad u salaamayaa gudoomiyaha qaaradda Yurub ee xisbiga wadani waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato qaabkii magaranayay dhalinyarada oo runtii maxaa haday uu xisbigan inta talada haya uu aad ugu fashilmay inuu u sameeyo vision dheer oo mustaqbalkooda iyo ay fikradooda magaranayay uu caddeeyo oo dhammaan sida imika ogtihiinba Switzerland ay yihiin dadka Soomaaliga ugu badan ee aad u soconaya Yurubta kala u socda ee imika halkan idinka muuqda wadankii runtii aad baan uga warhayaa waxa weeye 6 bilood oo kasta mar baan tagaa dhalinyarada halkaas joogto waan arko waan la kulmaa waxaad moodaa in aanay u muuqan mustaqbal dhow oo magaranaysa wadanka ay magaranaysa faa'iido u muuqda runtii ma jiraan runtiina dowladda nimika joogta ayaa arrintaas ku fashilantay waxaan rajaynayaa xisbiga wadani inuu arrintaas caddeeyo insha Allah mustaqbalka inuu dhalinyarada uu sameeyo vision iyo magaranaysa mustaqbal ay ku joogaan wadankooda xirfado loo sameeyo asxaabtii hore sidii ugu fashilmeen waxaan doonaynaa haddii ilaahay dhaha inaanay ugu fashilmin ummadda reer Somaliland waa dad imika magaranaysa dimuqraadiyadda waxay ka dhadhamiyey oo runtiina aad u xorriyad jecel arrimaha bulshada waxaad moodaa dowladdan inay ku fashilantay arrintaasna waxaan rajeynayaa in wax laga qaban doono in cadaalad dadka magaranaysa dhammaantood wada saameysa haddii ilaahay dhaahdo ay ka shaqayn doonaan waxaad moodaa dadkii reer Somaliland in ay yihiin dad bisil oo in maamul fiican ay helaan u bisil aad moodo laakiin in madaxdoodii aanay dhageysanahayn waxaan rajeynaynaa xisbiga wadani marka ku guuleysto wadanka in iyaguna ay noqdaan kuwo u dhagan nugul mujtamaca reer Somaliland insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waa in wada salaamay dadkiina maanta meesha iskugu yimi hadaf qurayno u wada nimeentaynu leegnahay anigu waxaan ahay qof cusub oo hooyo caruurta sanaysa laakiin intiinaasoo dhalinyaro aan arko ee reer Somaliland ee mabda u soo baxay caawa waxaan rabaa inaan ka arko liisaska la soo gudbin doono ama se dhiirigelin xagga dhalinyarada xisbigeennii hadda talada inoo haya waa aragteen dhalinyaradu dhankay ugu liicayso inaanay cadaalad ka helin laakiinse kan haddaynu isku duubnaano oo hal cod dhiibano inakoo aan joogin oo isku mabda noqono laga yaabo inaynu helo dadkii alla xisaabtami lahaydna waa dadkan fadhiya maanta oo oran lahaydeen shalaynu kumaanu soo raacin inaad dhan kale u leecdaan dhalinyarada baleega anu waxaan oran lahaa intaasoo qof baynu nahay haddaynu isku duubnaano anigu bas ma lahayn intaasoo qof haba joogta laakiin maadaama aynu intaasoo qof nahay maanta oo halkaas kugu nimi waxaan jeclahay inaan bareeninka arko aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan weliba aad ugu mahadnaqayaa dadkii xilka iska saaray inaynu caawa meeshan isugu nimaadno oo aan ku kulanno waxaan filayaa hadal badani kolley ma fiicna waxaan leeyahay bal hawsha dee xaggaasna ha laga wado oo yaan la daalin ha la isku tiirsanaado ha la tashado wax wal oo yimaadaba dadku hadday isku kalsoon yihiin oo isku mid yihiin waa la qaban karaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي السلام يا قدوميها قارة يوروب حسب وطني أحمد ناهي iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee Switzerland Mr. Maxamed Dageere dhamaantii waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta aad joogtaan way salaamantihiin hadalkan buuxsho waxaan leeyahay maanta xisbiga wadani waan iska rab taagnaa oo aan taageernaa xisbiga kulmiye oo soo aragnay waxyaabo badan oo inoo ballan qaaday kameynaan helin marka waxaan leeyahay sanadkan xisbiga wadani waan tijaabinaynaa dhalinyarada halka joogto waxa looga baahan yahay qofka sameyn qof gaarsiiyo oo inaga cod laga baahan laakiin waxa looga baahan yahay dhaqaale iyo inuu dadka waddanka jooga gaarsiino fikradeena marka waxaan leeyahay soo dhawaada kulliga way soo dhawaanaan oo dhalinyarada reer suuq baan nahay xisbiga waddanna aad iyo aad waan garab taaganahay waan garab taaganahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan waqti xaadirka qaaliga ku soo dhaweynayaa walaasheen koos xaaji cismaan oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ku soo dhawo koos السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا دمانتين. أنت إن هاكن عاوز كبوتي مين؟ ما داش نقول حتى بدن. وحين كم بدي سنة هي كل بقى إن المحل إذا هذا عرفت من وضنه دمانتين إنه مسيبنا وحويا يسبدل. أي ما أنت ودن كين يكون عينتنا. هاي إنه جد جد ديارنا هاي. تحس إنه كيو جد بكرنا. من نما. صومالي ده حيكون مهما هذا حال ولا بيجيله ده أيه بقول كتها هاي. إنه برا دمانتين إنه جالس سوالع. sidaynu isku nahay waxa weeyaan inagoo maanta dalkeenu halku maray waynu ognahay dawladdeenu waynu ognahay maanta siyaasadii dibadda iyo siyaasadii gudahaba inay ku guuldareystay waynu ognahay tii aynu waxa soo dhan aynu gelinay aynu fikirkeena gelinay aynu mabda'eena gelinay aynu midnimadeena gelinay waxay ahayd inaynu ku fashilanay maanta ayay maxaa la yiraahdaa jawaabteena noqotay haddaba aynu maanta cayntino oynu u cayntino inaynu xisbigeena wadani kulli toleynaga cod leeynoogama baahna دواابين محل إذا دواابين كسوف فوقاني لكن واحد نقول قرب استاي كرنا وإنه هو هيلين كرنا وإنه ما أنت محل إذا هذا ده هالقوة كانوا تاجي وإنه أركينا يكينوا دورنا أهم محل إذا حس بيجينا وضني واحد نقول قرب واحد نقول إنه محل إذا هذا نقول واتش وإنه نقول حد قالع يوحي كل بقى هنا يكل بالسياسة دي صار كم رأسين إنه لص عنه تحصل مرت دمانت هنا دوني ناين المحل إذا إسكوا دوغانو ووضع من الإسنانو ومحل إذا هذا وضعين وضع تاجنا بدي كان والدنا هاي ووضع تاجنا هاي هاتن عوا قف والبضك بدن كله وين بدن محل إذا هذا أجرنا يا يسوي سكوني لا كونا لوجين وح لوجين وحوي محل إذا هذا لوجين كده حس بيجينا معها محل إذا هذا يدوني له كهو فين قبيلة محل إذا حمانته يوم حمانته وده كأنك تشيل لوجنا ضد نقفل بميال بكرة قوي حس بيجينا كهو فين أيه يدوني ناين محل إذا هذا وقلت إنه وحن كل هذا كيجا عاو واحد ما سوى حاجة ما سوى ديار جروبين لكن وحن كم بدي يصنع هاي لذنبه يودني ما نقبلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والسلام على رسول الله اللهم هذا عاوز كل دمانتي وكما سلسلة الله بس التحاد ما تفرطين من الذي وقت الليل ما تصير شطين اللي يقدم قلبت أنه بيسي ميلادي وايد قاعدين thank you very much hard job بس هذا غلباتنا وحاله بهويت ودني عاون كسوتين لما جوا الناسين وبرضه كنت بعدين سفر تصور الشمالته واتكم الناسين كلوان انت كبعد وحن كسيدا سلام وكان كيس حزب الوطني ووصل الدومية محمد عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يبدو النصارين تهنيتهم كليه دمانتي سود وادا قلبي فرن يقعوا فرن سود وادا وطني انت كبعدي حزب الوطني مالتا وانا كيسي حفلتي ويلي والقصر ويلي قبل كيهاوي وأنت ولا كيسير هو ترى في الوكالة كيسير حزب الوطني مالته فرصة قالي وليه ومبدئ يسير تضبط وكذا الجمعية إنه ما تثبت الخير قبوضا هو سومالي إن شاء الله تعالى وادركتان إن شاء الله هو اللي يقول لي سنة حزب السنات وسميه فكر كيف إن بدل قد كهذا الشيء نيرة نيرة دي موضوع نيرة
مسؤولية عدك لا صارنا ذيك اللي هذا اليوم دايرة بالتهريب هذا الشيء جوبلس هذا الشيء يديك كمسؤولية يديك ما أنت صوص صفري لبعتني إذا أنا فكر كشطان تعزب شغالي لا ما كيديك مسؤولية كيلو مين أنا يديك ما أنت طريقة صومري وحده كلنا يديك الدوننا ولي تبتو يديك البغلينا فكر كينا نباهن هاي وحن كبدل الحيمات شغلانت ويتغى وادوكتين ما أنت غير كي نيجي جامعتك الصبح ولادك بسوق عليك نيجي لبعض ما ولاش بسوق على ما تسوقنا نيجي جامعتك بهالشغلانتها كيف بسوق عليك مركا دبتي إذيك أو listen to you إذا كان دول نفر يسمو سيدانو بدلي كرنا محان قشون كرنا تعليم ما أنت تدوي لا تك جامعودي صدق جامعودي كنت كسبان سبالك ما أنت إيش أنت كل صدق كل صوص صار يسا محان كبد الله سيدي ويجا كفايدي الحين ودني يردين لي ولا له هني قبلها ولا شيء هاي الكبد الله هيدي كان كدون النفر يسا نوسو قد بيا فكر فينا يوحك خلطان ما أنت كخلطان تهريب بالله تهريب بالله محاك خلطان تهريب محل تاريخ لو سوق شيء محل لو سوق قلي محل لو سوق دبعتوله محل لقى يبحث كرام بك we listen to you إذا كان جوني فكر كينا هنا قاضله نوسو دوادة سونا دوادة حسبه إلك سوى فرية مانتا ورنا وحسب قرن نيك السمانت حسبك قدي دي ما كود هذا الشركة قربت إنه قد بيعاوه نكس حزب جماعة وحزب قرن سفير بعد تحت سومالي لا دبال أنشأ حاجة يو تايتر كي سومالي أتبعت سلطاني وقاعد مسؤولية بقى قصارى مات مسؤولية داس قصارى وحواسي دادو نقول لي سفير خير قبا أو متلدد كيسة أو مرايد ونقطتين تانا كنت شذا مات كنت شذا إن النقطتين سفيرو إن دودكين لوتيكين وأمانته متلية marka mas'uuliyad bay saaran xilka aad qaadeen gudidan waxa leeyahay xilka ilaahay inuu fududeeyo anna ay fududeeyo maadaama qaaradda Yurub ay joogo ay fudud talabaad gobolada badan aad ka soo timaadeenba walaa ma kala ka furi kartaan insha Allah ta'ala waad soo iman kartaan maantana dariiqii dheeraa waad gaadhay كل لك والله إن شاء الله تعالى دمانتي الواد بحسيتي أنت كسوق بشيء خير مسؤول إن شاء الله بر لبادي مرسل حاضر الصوت غلطونا واد بحسيتي